السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalkiin maxamed cali ka howlgala isbitaalka walaalayaal waxaan doonayaa inaan ila wadaago fariin runtii muhiim aad aan u arko fariintaasina waxa weeyaan garan maayo in laga wada warhayo isbitaalada Yurub ku yaalay laga soo bilaabo Ingiriiska ilaa Sweden bal ilaa America tag isbitaaladii waxa weeyaan waa ay circirayaan oo dadkii cudurkii COVID-19 ku dhacay ayaa soo buux dhaafsiiyay runtii dhaqaatiirtu waa ay yaaban yihiin dhafoorada ayaa la wada haystaa waxaa la oranayaa arrinkani waxaan abid ama weligeen hore u aragnay ma aha waxaa la kala garan lahayaa ayaanu badbaadinaa ma hebel baanu badbaadinaa mise bilaayaanu badbaadinaa waayo boosaskii iyo sariirihii isbitaalada yaaleen waxa weeyaan waa sariiro xadidan oo dadkii dhan boosas looma wada hayo bal intaa waxaa ka daran runtii ugu kalifay klibkan inaan soo duubo waxa weeyaan Soomaalida oo runtii nasiib xumo ka noqotay dadkii bukaanka ahaa iyo dadkii cudurkan u geeriyoonayay Soomaalida runtii lambar 1 ama safka hore ka gashay arrinkan marka walaalayaal arrinkaasi arrin nooc tuma ma tahay Soomaalidii maxaan ku raahdaa Yurub ha ku noolaato meel walba in maanta cudurkii uu si aan caadi ahayn ugu dhacayo una dhimanayaan waan ogahay wax walba waa qadar rabbi raalina waan ku nahay laakiin se in dadaal la'aanteena iyo isdigashadeena maanta ayna gaarsiisay heer ay dadkeena ay si fudud ku baaba'ayaan arrinkaasi malaha arrin qabata ma aha arrin haboon ma aha marka loo barbar dhigo bulshooyinka kale ama dadkii kale ajaanibta kale loo barbar dhigo marka loo barbar dhigo dadkii dhaladka ahaa Soomaalida ayaa maanta lambar 1 ka gelisay ama saf hore ka gashay xag dhimasho iyo xag xanuunba marka walaalayaal fariintan doonayaan inaan diro waxa weeyaan cudurkani daawo ma laha daawadiisa waxa weeyaan waa ka hortag sida aawadeed walaalayaal ka hortagii hala soo celiyo waa muhiim waa daruuri ka hortagii hala soo celiyo yaan meelaha lagu wada kulmin yaan maqaaxiyaashii meelaha lagu wada kulmin booqashadii hala yareeyo maxaan ku raahdaa xafladihii hala yareeyo dhinacii nadaafadii gacmihii la iska nadiifinayay iyo maxaan ku raahdaa maaskihii af xirashadii la xiranayay wuxuuba hala soo maxaan ku raahdaa hala soo celiyo waayo hadii kale un dhibkan baa taagan oo isbitaalada baa la wada galay hadhoona maxaan ku raahdaa waxaaba dhici karta in loo dhinto naftu bini'aadamkana waxa weeyaan mas'uuliyad baa ka saaran naftan Ilaahay ku siiyay waxa weeye mas'uuliyad baa ka saaran oo nafti inaad badbaadisid mas'uuliyad baa ka saaran ummadda kalena inaad badbaadisid mas'uuliyad ayaa ka saaran marka walaalayaal taxadarkii hala soo celiyo haddana waxaad ka warhaysaan weli waxaan ku jirnaa marxaladii ama bilihii qabowii baa hadda inoo bilowday oo arinku waxa weeyaan 1 iyo 2 runtii ma joogo waxaa la filayaa bilahan soo socdan runtii inuu ka sii daro bal intaa waxaa dheer coronaviruskii inuu hadda isbedelay bariyahan waa wada maqlaysin mutation inuu dhacay coronaviruska waa uu isbedelay nooc cusub ayaa soo baxo noocii Ingiriiska la dhahayo noocii South Africaanka kuwaasina waxay kaga duwan yihiin coronaviruska aanu garanayn waxay kaga duwan yihiin waxa weeyaan waa kuwa yani waa uu maxaan ku raahdaa 70% ayuu ka awood badan yahay kan hadda jiro oo runtii aad waa nooc aad u fido marka taasi macnaheedu waxa weeyaan maadaama aad u fidayo dad badan baa maxaan ku raahdaa ayuu gaari doonaa dad badan ayaa isbitaalada soo gali doona dad badan ayaa haddana u dhiman doona marka arrinkaas arrin sahlan ma aha marka walaalayaal naftani waxa weeyaan ammaano inuu tahay dadka kale aan la noolanahay insha Allah mas'uuliyad baa naga saaran marka walaalayaal hala dadaalo hala taxadaro way cudurkani daawo ma laha waa la socotaan bariyahan waxa weeyaan talaalka ayaa bilowday talaalkana waxa weeyaan ka caafimaad ahaan ama isbitaalada iyo hay'adaha caafimaadka dhan waxay ku talinayaan in talaalka la qaato marka cidii fursad u hesho talaalkana talaalka ha qaadato waayo dhibka talaalka uu qofka ka soo gaara ama marka loo barbar dhigo dhibka maxaa la yiraahdaa coronavirus cudurka hadduu qofku ku dhaco ama uu qofkii talaalka qaato waxaa sahlan qofkii talaalkii inuu qaato oo dhib badan kama soo gaarayo biidhnillah marka taana waa taladaas ay runtii hay'adaha caafimaadka bixinayaan in talaalka la qaato marka walaalayaal taxadarka hala soo celiyo fariin yaro gooni ahna waxaan ama fariin yaro khaas ahna waxaan u dirayaa dhalinyarteena u dirayaa dhalinyaro waxa weeyaan la socda hadda markii runtii la sii dabagalay waalidiin badan ama dad badan oo maxaan ku raahdaa inaga geeriyooday oo dad waaweyn ahaa dumar iyo ragba waxaa runtii soo ifbaxaysa in dhalinyartii ama ubadkoodii ay runtii cudurradii wada geeyeen ayaa soo ifbaxayso marka dhinacaasna bal dhalinyaro arrinka ha laga warhayo runtii waalidiintiina maanta sababaha u noqonaya inay maxaan ku raahdaa cudur aan guryaha ugu keenteen inay u dhintaan
marka guud ahaan fariintan doonaya inaan diro waxa weeyaan coronaviruskii marxaladihii u adkaa ayaa la marayaa, cudurkii waa uu sii fidayaa. war qof walbo guryahaaga isku xir, qof walbo guryahaaga isku xiro, maxaan ku rahdaa dadaalkaaga iyo taxadarkaaga qaado, booqashada hala yareeyo, hala kala fogaado, maaskii hala xirto. marka insha Allah bal ilaahayna ha naga dulqaado corona cudurkani. marka walaalayaal fariintaas ayaan doonayaa aad ha loo dadaalo. waana nasiib xumo runtii Soomaalida inaan maanta number 1 ka noqono dhinacii xanuunka iyo dhinacii dhimashadaba meel walba aanu joogno marka loo dhigo tira ahaan dadku intaanu ka nahay. marka aad baan salaamaya insha Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaah.